يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. xadiiskan waxaa soo wariyay jaabir allah ka raali noqde. xadiisku wuxuu leeyahay man laqiya allah, qofkii allah subxaanahu wa tacaala la kulmo, laa yushriki bihi shay-an, asagoona allah subxaanahu wa tacaala wax la wadaajinaynin, allah subxaanahu wa tacaala sokadiisana cid kala caabudaynin, dakhala aljanna, qofkaas jannaduuba galo wuu leeyahay xadiiska. laakiin qofkii cagsigaas ama sidaas si ka duwan sameeya, oo waman laqiyahu, qofkii allah subxaanahu wa tacaala la kulmo, yushrik bihi shay-an, asagoo wax la wadaajinaya, dakhala annaar, naartu buu galayaa. marka qofka muslimka ah waxaa laga rabaa inuu waxyaabaha shirkiyaadka ah inuu ka fogaado, qabri caabudka, muxuu ahaa culamo caabudka, waxyaabahaas inuu ka fogaado si uu ula kulmo allah subxaanahu wa tacaala asagoo oo niyadiisa ay wanaagsan tahay, ay ka badbaado shirki, muxuu ahaa naceeb, xaasidnimo, qabyaalad, waxaas dhan asagoo qalbigiisa ay ka nadiif tahay inuu allah subxaanahu wa tacaala la kulmaan rabaa. si qofku u helo janno waa inuu la kulmo allah subxaanahu wa tacaala asagoo waxba la wadaajinaynin. qofkii sidaas si ka duwan sameeyo oo allah subxaanahu wa tacaala wax la wadaajiyana wuxuu galayaa naarta buu galayaa. marka aan iska ilaalina insha allahu tacaala shirkiga, sababtoo ah shirkiga waa dulmi la gala, kan ugu weyn waa shirkiga. wasalaam. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.